waxaa halkan kugu soo gudbin doonaa sir adiga ka daahsoon taas oo haddii aad ogaato ka caawin doonta hanashada qalbiga gabar waliba. waxaan kula wadaagi doonaa meelaha ay dumarku ragga ka eegaan kuna qiimeeyaan aragtida koowaad. haddaba marka aan kula wadaaga kadib si weyn uga hawlgal meelahaasi. muuqaalka guud ayay dadku ka hadlayaan, sidoo kale muuqaalka guud ayay ku xukumaan iyaga oo aan marnaba wax hubsan. murti hore ayaa tiri qofka aragtidiisu ku deeqdo ayay oontiisuna ku deeqdaa. sidoo kale waxaa jira meelo badan oo ay haweenku ragga ka eegaan misana ay ku macneeyaan maankooda iyo maskaxdooda. ma sheegi karo sababta ay u eegaan oo dhammaantood waxa aad moodaa badankoodu dabeecaddan inay ka siman yihiin. dhammaan qodobada aan kuu soo gudbin doono waxay u muuqdaan in ay yihiin kuwa meelaha ugu badan ee ay dumarku ku garawsadaan qofka ay la hadlayaan cidda uu yahay iyo heerka noloshiisa. guudka sare ee qofka mararka qaar waxaa laga dheehan karaa waxa uu yahay. marar badan xulashada shaqooyinka qaar waxaa lagu qaataa muuqaalkiisa guud marka laga yimaado aqoontiisa. waxba yaana hadalku ila tigaaline, dhammaan meelahan aan kuu sheegi doono ayaa ah meelaha lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay inuu ninka ragga ahi iska hagaajiyo, maadaama dhammaantood ay horkacayaan samaynta wax wanaagsan. waana kuwan: kow, kabaha ama saanta uu ninka ragga ahi xiran yahay waa mid ka mid ah meelaha ay dumarku ka eegaan ragga. oo kabahaaga sida ay yihiin ayaa siinaysa go'aan qaadashada guud, taasi oo u sheegaysa sida aad tahay. kabahaaga casaynta ama baalashka iyo dhalaalinta lagu ogaado. labo, timaha waa meelo ka mid ah meelaha ay dumarku ka eegaan ragga. ma yihiin timo nidaamsan oo laga shaqeeyey? timahaagu sida ay yihiin ayay warbixin ka dheehan kartaa qofka dumarka ah. qaabka ama sawirka ay bixinayaan timahaagu waxa ay maskaxda dumarka u beddeshaa warbixin buuxda oo sheegaysa qaybo ka mid ah shakhsiyadaada. saddex, dharka. murti duuga ayaa tiraahdaa huggaagu waa uu kula marti tagaa. dharka aad xiran tahay waa mid ka mid ah waxyaabaha ka turjumaya shakhsiyadaada nololeed. waxaana laga yaabaa muuqaalkaaga dhareed inuu been sheego, balse taasi ma ahan mid ay aad uga fakaraan maskaxda haweenku.